علاد فرصة أويد فلايت كنمبر كيسية سيديد بقول 8 أو أي صار نايم بقول شن إيه وحاسو كارتني مشان إيسي كرديس هدرسان دعنا وحق الشيء الشركة عبد المعدي ضرن هندي وحق قرحي طوفان سياسات wararkan soo gaaraya waxay sheegayaan diyaaradda inay saaran yihiin 150 oo Hindiya sidaad wada arkaysaan diyaaradda musiibada ee ku dhacday nambarkeedana uu ahaa 815 xitaa shirkadii lahayd ee lagu magacaabay Aditya Raj dadka ka shaqeynaya mas'uuliyadeeda inay dusha saartaan waa ay diideen waqti xaadirkan arintan si aan anaga u sii iftiimin waxaana la joogo shirkadda TGC ee baaritaanka ninka u fadhiya ee lagu magacaabay Mr. Ramos oo dhaw mudan dhacdadan ilaa ay hadda mas'uuliyadeeda qof dusha saaranaysa ma lahan anaga iyo daawadayaasheena sideen ku ogaan karnaa marka qofka ka dambeeya arintan si taas loo ogaado waxaan u baahanahay sanduuqa madow in anaga helno sanduuqa madow wuxuu yahay anaga daawadayaasha ma noo sheegi kartaan mudane hadda baan sidoo kale waxa loo yaqaanaa cudubaha sanduuqa madow haddii sharaxaad kooban ka siiyo kalarkiisa waxa uu yahay gaduud sidoo kale codka diyaaradda oo dhan waa uu duubaa codadka bayloodka xitaa si fiican ayuu u duubaa ka hor intaysan qarxin diyaaradda codkaas anaga markii aan dhageysano waxaan ka ogaa karnaa diyaaraddaas qaraxeeda cidda ka dambeysay ama cilad farsamo darteeda ee uu qarxday sidaas ayaan kula ogaa karnaa laakiin mudan boxkan asaga ma halaabayo miyaane may dabcan ma halaabayo heerkul 1 digrii xitaa ma ku halaabayo isaga wuu adag yahay ma la yaabo inuu halaabo daawadayaal hadda waxa aan sugaynaa boxkan inta gacanta lagu soo dhigayo oo kaliya si aan u ogaano flightka nambarkiisa ahaa 815 musiibada dhanka ay kaga timid annaga warbixin inaan gudbino Soomaaliyeed marka hore report kala keeno riboodka hala keena taaganta anaga dad wiligood wareysi saxaafada siin jiray maxaa nooga dhigaysaa waa markii ugu horeysay ee shirkadeena cid su'aal ay weydiisay anaga su'aalaha inaan ka jawaabno anaga ayaa shaqadeena tahay ee adiga shaqadaada ma aha warka in la bumbuniyo waa laga fiican yahay go'aan ganacsiyaana sugaya dalabta maalgeliyaashan dubay balan kula leeyahay buga warka hoos ha loo dhigo laakiinse mudane kana annaga ilaa hadda waxa deena maaragtay oo aan dadka shirkadda joogo mar rabaan ayaga inay wax qabtaan ama dusha loo saaro annaga oo kaliya soo saarayaal ah ayaa wax walba la weydiinaya ha runtiis waaye diyaaradda haddii ay soo degi wayso waxaa laha qalabkeeda haleysnaay haddii diyaaradda xoogaa luxmatana waxaa laha qaabka loo sameeyaa qaldan haddii raashinka ta xoogaa dhadhan yeelaha waxaa laha heerkulka diyaaradda waaye kaba soo qaada hadda aniga warbixinayaan qorno oo waxaan dhahnay diyaaraddeena wax cilad haba yaraatee ma lahan laakiin si waxaad ogaataa sanduuqa madow markii la helo adiga waxaase ka walwalin inaa walwashidna maba loo baahnaba ila ma aan midaas inuu aqbalaya isaga yaabaayna ranfiir maa ka hadlowsaa asaga wax oo go'aanka gaari kara haba yaraatee male guddigaa meeshaan fadhi iigaana go'aan gaaraaya teeda kale adiga horta guddigaa inaad ka mid ahayn ma ogido annaga le wax walba go'aanka gaari karno adiga wax la isku xiriirinaysaa taas la soco
dhegaysanad waaniyo ninkaas waxa waaye maamulka guud waay ninkaana usugu matalooya hadda ma hataaga waa matalooya ma ay dhahdina horta wax badan aan ku sheegaa bagga koobaad waxaa ku qoran shirkadda in ay quusooso si fiican u fiiri bagga saddexaadna asoo niikilooyaa ku qoran mar labaad horta aad kuu soo celiyo marnaba ma ogolaanaya mana hore ogolaanne horta hore usuga aawe xagow jara ii sheega يا أصحابي قاعدين فضولية ما حد يقول أحس فضولية وقتي ما هنا نجا اسباب شيء يا أصحابي ما حجر ما حنقد المشن cadaadis kan wada hoos buu dhacaya ما حقيقي kartaa midaasna 36 feet waay أباي hawadana waa sii daciifaysaa oo sasmay leedahay ha maxaan samaynaa marka okay adigaad i raadinaysaa ilaa hadda anigana halkan ayaan kugu sugayaa waay kan hadalkan inaan dhahaa ilaa yaraanteeda waan sugaya waa deelag wanaagsan runaanta ku faraxsanahay waana maasantahay waxaan dhaha kan waan qaadan kara halkaana waa ka tegi kare laakiin waxaan istiri shaqaalahada marka hore waa inaad u mahad celisaa haddii kale akhlaaqdaray noqonaysaa mahadsan mar labaad shaqo wanaagsan adiga meesha ina imaadi ma bahem halkaa waa shirkadda aabbahay wakhtigan doonan imaanayaa هلو سويدي هلو معاني ايه وران طبعا انت اصبر maxay tiri halo halo ma isiihay adigane kuma maqlo naga aamus adiga يا أخي هالشو مثلك هذا البلد محسن اسكي قوسا ما عسينو يكادي هل دقيقة حول يقص علي عضد كان مقلوي محي هنا معقول معها محاوي حلي الله بهنين تشكا هرت محوق أمر والبو محاسمة يا هاد سيدانكو حالي عارنتان وحن وابنع كل جودة بليز بيبي بليز بليز ور بيبي ده شيء سمحتها هنا هل حب مكوكو في الناوي صديقة هرت إيو كلاو هنا نهضو فرصتيسي وحربنا كوش الرحية marka hore halkaan ka timid midigta anigana bidixan ka soo socday kabadha dheer ee wadata kadibna way iga hor timid oo igu soo dhacday kadib saxaafadda meesha timid waa la sawray beela tahay qaladka gashay xitaa saxaafadad ku eedeynaysa waxaas aniga in ay iga dhacsiis rabtaa saamaha ma sida ma laakiin socda ya qays mid moogtahayne adiga maanta in dhimanayaa leedahay laakiin ani ma ku dhawayaa arrintaas
saxaafadda lay ku dhahoosaa ku dhaha waxaasoo dhan laakiin waxaa la yaabanahay maxaaba codkaanaa maqlooyo mitin kulanan ku jira macnaha sidaan ka wadaa beelaa tahay guddiga kullin way kula ordooyin maaho waxaa rabta maa iska sheegaysa adi se iila ordayaan jirkooda maba dhisna nimankee fiiri iga ballanqaad galabtiina imaanayso arrintaa iga sasabaysid sorry baby galabta shir kalaan leeya shirkaaga ha gubtaan ku dhah fiiri aniga wakhti fara badan ayaan haayaa marka xigtaad imaanaysidna lama filaan qurux badan ayaan kuu diyaarinayaa waa huwaa marka kale waxba ma iloobaysid maxaa tiri furiin codadanba kuu reeba ma arkin mea maxaa dhahday goormee waqtigiiba waa soo noqaa haye qaali aad baan ugu xumaa si degdegan ku soo baxay midda kale heesii talaadada ku baraati garanayaad waan ku wada diyaariyey kafeygana meeshiisa si fiican ya cabcab asri beelaa tahaan ku dhahay laakiinse wakhtigii ma haysid wakhti walba inaan kaa adkaado waa laga fiican yahay yaaqae meerijaan waa la yaqaanaa laakiinse aniga cid i taqaana ma laha adigoo keliyaan kaa adka oo maanta dhan ku burbursanaya maxaa tiri macaani maxaasaan ii leedahay midda kale shirkan kuleelka anaa ku jiro ma noocaddaan iila hadlaysaa wakhti ii mahaysida ii dhehe miya war ma ogtahay qofkaa jeceshaa wakhtiga waa loo raadiyaaye wakhtiga miska imaado maanta dhan waxaa isleeyahay ninkaa muxuu saan uga hadlaya laakiin haddaa si fiican kuu ogaada bo anaa naag ii warwareejinaysaa miya kadibna waa iskay difaacaysaa imadaa ku dhaha guriga anaa ku aqaanee naagaa ii wareejinay meelahaasoo dhigana qalab saxaafadeed miyayna waxaan adiga ka soo yeeshay ahayd halo halo hal daqiiqo fursadiisii halow xubi macan may maqlaysaa halow mudane naagtaa waa amar badanta anna waa iska dhigi koleeya hadda waa baxaa waa ku soo naqaa amarkeeda inuu qaato waa ku qasban yahay keligiisa go'aan ma gaari karo manadra anaga wuuna dhegaysan jir marka hore hadalkeena qiimo ma laha miyaa ii sheega bal isaan iska sugaynaa qiimaha ninka hayno ranfiir mar walba anaga dhib loo noo abuuraa laakiin nidbaani nasiibkaada aad buu u wanaagsan yahay maxaa yeele maanta dhib ma wado ee dhibkagan rabaa inaan xalliyo diyaar muu tahay iya babaay waaba i qiimaysaane yaa idin heli karaa iga xishoodsiina iska fadhiista nasta dabcan sanduuqan waa xasuusateenaan la malaynaa xaggaad ka soo heshay adiga adeerkana hore shaaruuqan wuxuu u yidhi wax si niyada haddaad u jeclaato dunida waxay kuga caawinaysaa saad ku heli lahayd shaygaas haye alxaasil dunidii ayaana caawisay sanduuqina gacantaan ku soo dhignay run ahaantii caddaynta intaysa dibadda u bixin ka hor gurigaa ma dhigannaba shaqaalaha diidyaa ka shaqeeya aad bay u wanaagsan yihiin mushaarkan loogu daro ayay mudan yihiin amaba waxaan isleeyahay qof ayaa bakshiis dhiibay soo sax maaha mase waa qaldanahay agaa ranfiir arrintan waa arrin adag in la baaray u baahan tahay waa la baarayaa balse qorshahan halkaan isugu nimid marka hore waa inaan ka wada hadalnaa cadaadiska diyaaradda hoos u dhacay mudane ma hubtaa midaas mana xaqiijin kartaa dhulka aadaa uga dhowna 66 kun oo fida meeshaan ku qoran qaabka ku dhacaysa marka mudane iska fiiri beeladadooda idin waxay isku sheegeen diyaaradda dhulka inay u jirta 36 kun oo fiid haddana waxay ku dhacday buur 8 kun oo fiid asay ku dhacda marka master farma beeladada haddaysan hurdaynin waxaan maxay ku dhici karaan cabirkaa qaldan waa saxan tahay baaritaan dheer markii aan sameeyey sannadihii la soo dhaafay waxaan ogaaday meeshii aan agabka ka qaadan jirin aan ka qaadano kambelikan aan ka qaadan jirnay taasna waxaan ku heli jirnay raqiis ganacsi wanaagsan ayaan samaynay laakiin ma is weydiin ganacsigaasaan samaynay dad fara badan
inay ku baaba'ayeen qaladka innagaa iska leh dad fara badan ayaa darteen u dhintay sidaa darteed kabacdi duulimaadida noo diyaarsanoo idil waan joojinaynaa qolada hawadana ha loo sheega magdhow hadday doonayaan waan siinaynaa see ku joojihayna ulka yaaqay wax macquul leh maaha haddeeraa u baabaan anagii diyaaraddeena weyneed xaaladda ku sugantaa ma ogtiin adinka hal rikaab haddii la baajiyo qiimaha dhan hoos ayuu u dhacayaa 300 shirkan hoos u dhacay annaga dhan waa baaba'eena taas macquul maahan makaa yeelahay dadka dhinta magdhow leh ruwaay taas aan rabay la sameeyo igaarkeyga aniga tamiyo kow sano jire marka ugu horraysa iskoolkiisa dalxiis u wada waay aniga cadaaladaan rabaa saan ku noolaa ma karo igaarkay inaagta soo aroosi todoba inay aadaanay u baxeen lamadood maxaa todoba ugu yaab lagu diimiye ana keligee ii tageen hadda maxaan ka noolaahaa marka waayahe nadwaani wiilkaaga diyaaradana dusaanalaha magdhow imisaad qaadan lahayd adare dhegaysaqaan islaantan oynaysa ma ka dhaadhicin kartaa shirkadda sheerka aad ku leedahay inay ka qiimo badan tahay gabadha nolosheeda iyo wiilka ay dhashay master samiir sannadkiiayna soo dhaafnay aabbaha ayaa geerida soo maha imise bilyan ayaa kuu beddeli kartaa shirkadda duulimaadyada aditya raaj hal qof ayaa mabaadidiisa ku dhisay mabaadidaasna haddaysan soconayn shirkaddan shaqadeedana ma sii soconayso maalgeliyaasha dubay anigaa la hadlaaya qofka i raacaya afkiisa ma kala furi karo anigoo keliya ayaa hadlaya warbaahintana anaa war u diyaarinaya adeer mahaalaa buur tikid nadiifa oo abniha ma iiga diyaar garayn kartaa adoo raalliya waxay ii qabaan dadkan ma sheegi karo laakiin abnigooda muhiim uu ii yahay shirkadda faalkan adeer faylashooda ma ii soo diri kartaa heshiiskayga la dhexayn ka wadaa aha warbixinta ugu dambaysa idinla wadaagaya qofka heshiiskan soo dhammeeyey ballan waxaan ku qaaday ma dhammaystiraay dubay aanoo balana hadday sidaas tahay safarkayga ii fududay dhoscom aniga tigid mid kaga dalbaana ii sheega akshinkan soo samaynaa iga khasaari rabe ma soconaa waa maxay waxaan sida xujiraan kaale shaqaalahan istaafka aniga lacagta blash box siinaana ii sheeg mudan waa isku daynan iga aamusoriya iska raalahaw hay mudane horey muu dhacda nin shirkad dhan maamulayo inuu burcad la dagaala asiga ilaa goor ma soconayan waxaan ilaa kursiga aad kaga fariisanayso yab waa runti wiilkayga maxaad ii fahmi ladaa awow adigaan ii fahmayn yaranteedu waa xasuustaanu malaynaa markaan baaskiilka qaata abbay muxuu samayn jiray baaskiilka ayuu silsiladkaaga xiri jira asaga laakiinse baaskiilka kale ee shaqaale ay lahaayeen ayaad adiga xadi jirtay kadibna waad ku soo wareegi jirtay soo saas maaha dabcan haa wiilkaygii isku day inaad fahmi iga dhaafrin royoo kale ha ila hadlin waaw waxaana laga dhahaa mishan waa lagu dagaalami karaa si qalbiyana ayuu u naqshaday aabbahay diyaaraddan aabbaha wuxuu ahaa beelad wanaagsan runtii sidoo kalena wuxuu ahaa qof wanaagsan isaga fiiri hadda nin shaqaalaha ayuu walaalkiis ka dhigtay maxaa ku hadlaysa awow walaalkay mar walba wuxuu dhihi jiray shirkaddan adiida daraaj waxay noqonaysaa shirkadaha dunida midda ugu wanaagsan ayay noqonaysaa caadi maaha ninkaas waan xasuustaa runtii hadduu maanta joogi lahaa nimankaan sida mukalaan u qayl lahayn siad u hadlaysaa ilmaha markii la maamulayo maamulka uma baahna ee kaabagalaaska ku filan ballan waxaan kaa qaadayaa sharafta aabbahay inaan kor u qaado waan ogaa wiilkaygii aniga dunida hal walaal oo keliyan ku qabay balse maanta ma joogo oo walaalkay uu dhintay
balse intuusan iman ka hor anigoo wiil-la'aan ahaa ayuu hal wiil dunida korkeeda iiga tegey awoowe ma waxaad doonaysaa sidaan u duulaya inaad ogaato inta aniguma filna ee hawadan ballaari waxaan suuragal ahayn waa yaa dhihi jir ma xasuustaa aabbahay waana ka hele wiilkaygii adiga hadda shaqadan soo dhammayso anigana mandirkaayan duco kuu sii qabanaya awalanba kaa sugan xafladaro qamri iyo waxaas laga isticmaalaa inaa ii dhigto maxaa dhacay ma mar kale ayaa dagaal dhacay sawirkayga joornaalka haddii lagu soo daawacay qalad miyaan leeyahay wax qalada malaysa anu arka kolley ha eedin wiil yaroo qurux badan haddii joornaalka lagu soo sawirin oday waayeela maa lagu soo sawiri lahaa waa maya maya mid saasaa dhihin iguma kalsoona qoftaas sasabano maxaa dhacay adiga la iisoo sasab adaa isfahmaysiine runta ma kuu sheegaa keligayaa baxay waan la socdaa midaas ilaan mukulaalaana qaylinaya qof ilaalay ayay rabaan or adiga eedada kale warkuu fahmee ku jecliyaa midda kale awoowe laba gabdhoodoo qurux badan ayaa halkaas igu sugaya ma garatay kutuleetiga laftan muxuu ka dhex samaynaa orod wiilkaygii ii baashaa laakiinse iska yareeyaa habasanina kun haddii kala dhow dhib weynaa la kulmaysaa ma fahantay mayla kabtamaysaa ma xuma ma xuma ii ducee alxasil waa kuu duci wiilkaygii mudana qabso soco wiilkaygii soco yees gabdha waa idin salaamay kaa qaadnay keenan kaa qaaday meel fiican hala dhigayaa ma soo dahay dabcan wax yar lee soo daahday ma badneen waqtiga loo baahnaya nimid هو مدن عبيتان كايغ اسفودانيا لكن تسمع سلام على قوضة اسكو دقيقة ما ديد انت مدن بالراجنا خيانتد ما اسكو ديو ساعة قبله دون محيق شكسيين مانتا عيارتان هاد السنة بدن يسوعتا مثل هذا هذه قبل قديم يا نغط معلم ده ان ما اكتهيني دياردان لأنتي إذا كفاية حتاكم سميسن كرتid dhegeyso daciifnimadeeda ka faa'iidaysanya aabbaha qalinkiisa siduu ahaa wuu fiican yahay aabbahay saddex marna waa i weydiisay maxaa dhacay maya lacagteeda gurina ku dhisatay in kalan ku weydiinay wax weyn maa taas adiga marnaba isma bedelaysid hadda waa baxa kabtankaa soo fiirinaya maxama bay hal mid iga dhegeyso oo liifkaygana doonanaya dadka biyo cabay laayihiin annagana ilaa hadda diyaaraddaa barkeed noogu samaysantaa maxay dhahdane mamay waxba waad qurux badantaa waa mahadsan tahay igaraal noq mudane okay dokumentiyaashaana dalbata ma ahano beautiful thank you adigaa mudan garab wanaagsan mudane kursigaaga waa inaad ku laabataa weliba aa fadhiisataa hadda waxaan u baahnaa diyaaradda anaga inaan duulino waa socdaa kursigii dhinaciisan u socdaa captain kursigayga waan ku fadhiyaa amar kaloo siinaysa miyaa jira bal ii sheeg maanta ima aadan soo salaamin xoogaa mushaarka ma lagaa soo daahiyey waa midaan la yaabanaha may mudana diyaaradda ka soo daaday saas daraaddeed aan u degdegsannahay xawaaraha diyaaradda yaray maxaa yeele diyaaradaha ayaamahan qaraxay keeneen may mudane midaas ma dhici doonto haddeeba diyaaradda duusha anigaba ku imaanaya haddaad ii timaado yaa wadaya diyaaradda waan kula kaftamay wax kale miyaad ii haysaa soonkaaga xidho adigoo maadsan runu waxaan aqsiyaa kan mister malhodra ku soo dhawaaw diyaaradda phoenix fadlan adigoo raaliya dhagahaagana amaahi waxaan kaa codsanaynaa suunka inaad xirato sidoo kale buugga badbaadada hortaada ayuu ku jiraa
tan kale waxaan kaaga baahanahay haddii aad oksijiin iyo waxaas u baahatane korkaaga ayuu suran yahay igaraale noqo mudane cabitaankaaga ma qaadi karaa diyaaraddu way ka ciribtahay shaqada cabitaanka marnaba laguma cabay sweetheart mar kale galab wanaagsan mudane mulxootar aniga saniyal ayaan ahay waxaan kugu wargelinayaa haddaynaan hawada u sara kici doonno wax walbo elektroniga haysatay telefoon kombyutar waa inaad damisaa ha ka walwalin hawada duway waxaa ku beegannahay 9 saac iyo bar saacaddu markay taagan tahay Prepare to take off. كابتن سانيال شرما ما يمقشان ميا هلو maxay jawaab isii laayeen laakiin كابتن هلو سو حلب مو wanaagsan ايه جواب فيلم ما يمقشني هلو waxa lagu tarjumay كابتن astaan films कुछ याद की
ma samaysan kartid تفضل. halkan fiiriye ayaa soo laabtay waanaga shaqadan labadiinna qabateen ileen diyaaradda mar haday duusho qof ma soo kori karto hadduusan Tom Cruise ahayn hawshan saa u qaban lahaydeen lacag fara badan ayaad ku soo qaadateen lacagta markaa qaataan kadib sharma adiga doonku qaasa gadanaysaa sanya adigana Brazil gabdho qurux badan qamri kula dhaxabaysa waa intaas lacagta qiimahaas oo kaliya ayay leedahay xaqiina si kale hadaan u fiiriyo arrintan waxa ka dambeeyay faraadkii 815 sirtiisina banaanka keena dadkii diiday wasina qiyaasayo dabcan waxaas wax weyn ma qof kasta qiyaasi kara si hadii loo fiiriyo
laakiin maxaa samayseen gabdhihii masaakiinta ahaa ayaa disheen kadibnana ay sii dayseen hataa shaqaydii harsantaa u bilaabaysaan ii sheega marka maxaad iga dalbanaysaan oon idiin qabtaa codsada maxaa idiin qabtaa hadla gacan fudud maad hadashaan waqti ma hayo halow halow hadla yaaqi waan ogahay inaad imaqlaysaan midda kale noloshiina ay idiin fududeeyo shirkad waxaan leeyahay $500 bilyan waadna dareemi kartaan lacagtaas tariskeeda iyo inta ibro ku jirto wax codsada maxaa idin siiyaa nolosheeda imise idinkugu fadhisaa ma hadashaan hadlano hadla yaqay ma hadashaan maxaa rabtaan ii sheeg waxaad codsanaysaan lacag maad rabtaan mase shirkadda mase waa idin shumina sorry war maa nala hadashaan halow ha laga yaabo cod inuu ku furmayo waa tareegarayna ii kaadi felix iga fur felix codkaaga ma shaqeyn simsim isfurno waqti ma hena yaqi simsim please simsim isfur yaqi maxasbe bes hagaag neef qaado ayardeg muxuma waa gartay markaan dubay tagno burj khaliifaan tegaynaa waa wada sharaabaynaa arrintaana si deganaanaan ku dhammaynaynaa say adalan tahay sooma wanaagsana haye waa gartay burj khaliif warnaa idinkadaa marka waa yahay ha ilaa hadlano waxaa la idhaa yaqi albaabka fura albaabka maxaa laa musatiin laga furayaana bilaa alaalow ميدي هلو يا اخي خف تلفكي قبنا يا ملامي قوي يا اخي تلفونك قف سكعي جوابه يا ملامي يا اخي كوك من التلقى حتى تلفك ما قبنا بس وين قلت اوكي هقاك وانا ما تمرك اوكي وحمد سمينا واوري بيلوتك ديارة سيدا انه قد قدين كرماني قامودي هدي هذا اللي هذا قفل هذا هنا رأس السوق سما
abtin good afternoon mudanayaal iyo marwooyin waa maalin qurux badan neefta jiida dareeshada bannaankana soo istaaga dhammaantiin si aad u aragtaan cirka quruxdiisii jooga siduu yahay sunna xirataan lama baahana maxaa yeelay diyaaradda halkan ay dhex taagan tahay waa anaga nasiib xumadeenna bashaala xaflad dhigta iska sharaaba hala boodboodo walwalka hala iska dhaafa ilaa xaaladdeeba sidaa noqotay waxaana galata siinaa aaliya iyo sharma زندانی هذا نظام أرجني تمہارے او ثانية حنا ده استقرار كما قاضي منكو عياري ونوع كره وريا او ثانية ما اي كلا دوريسا دياردا وقت قديني ازاي يا اخي الباب كي يقفل بليز سمي جلس كان واحد جوج وريا وين تجي مامي runta idin sheegay qof arrintan uma sheegay inay dili rabtaan cidna uma sheegay hala iga furo albaabkan waxaana joojiye please ifaan وريا ثانية مصبح الصبح وهي انا السكلة
celiso waxay la tahay fariintan midii ugu dambaysay inay tahay markaad idhahaysi maantaad dhimanaysaa ma aqan waxa kaa keenay way fiicnaan lahayd fariintaada hal jawaab inaan u helo way fiicnaan lahayd dacwooyinka badan ee aad qabto mid ka mid ah inaan kaaga jawaabi karo fariintan inay ku soo gaarayso iyo in kale aniga runtii war uma hayo laakiin haddii fariintan ku soo gaarto waa ku baryaa qof kale hayga dhex raadin maxaa yeelay qof sida anigoo kale u qurux badan oo aqli badan ma helaysid ha isku daalin aryaa ranviir manoodrow ranviir manoodrihii iska lahay shirkadda diyaaradaha ee aditya raaj kalsoonidii iyo mabaadi'dii oo aabbihiisa aditya raaj uu ka dhintay ou u yahay tusaale mahan ku dhex muuqda laakiin waxaan aad ugu xumahay inaan maanta idiin sheego yeerkaas inay maanta diyaarad la qaraxday ou dhintay adduunka xaadirku maaha muggan baaritaan sameyn aan waxaan ku ogaanay inuu sameeyey heshiisyo musuqmaasuq ah taasoo shirkaddeena hoosu dhac ku riday waxayna sababtay duulimaadkii 815 inay musiibo ku dhacdo tilaabadaas uu qaada horta hore shirkaddoo keliya khasaare kuma dhic dad badan naftoodu u baasbaxay shirkadda aditya raaj anigoo matalaya shaqaalaheedoo idin waxaan raaligelin buuxda siina dadkay musiibadda dhacda saamaysay weliba waxaa isku daya dadkaas magdhow in aan gacanta ka saaro dadka noolnoolna cafisaan weyddiisaha hay barowdayda ka war aqoodbadan waxaan ku talagalay shir saxaafadeed dubay aan ku qaban raba ka war ma ku qanciyey aniga ma sheegi karo inaad daawanaysa in kale ma sheegi kara balse waa fiirsanay laakiin anaa og waa fiirsa hee sababto ah waa madax adag tahay aabbahaa oo kalaa tahay aabbahaa sahalku ma dhimanaysa waa ku ogahay adiga waxaada tiri shirkaddan inaad kartidiisa iyo raganimadiisa usuga keligiisa ku sameeyey keligiisa adii tiri keligiisa oo makaxaan
nacallaa keligiisa ku yaal ariga mabaadiida kaadii sababta hore waxay ahaayeen ha ama filinka diiwaanad soo fiirsata xale shirkay qabanayeen sheeka filmaad ka dhigta ka war adooga runtii maraan kuu sheegay madaxtinimadowha unuka waa shirkaddan waxa shiday unukaa keela kicinna adooga keligiis waxuu qaban karay shirkadda gudaheeda qolka intuu isku soo xidho iska qilqaylin jiray sida nin waalan oo kale asaad leedahay isagaa kiciyey ka war maantana adigaba xadka laguugu talagala ka tagtay kangili kan gabbee kangiliyaad keentay arkanday adiga waxaad la yaaban tahay barnaamijkaasaan ku diyaariyey soo maha anaa kuu sheegaya adigaan wareerka badiyey bugaad wareerka badisay aniga hal baylood oo qataro qamarjiyaan raadin sa ugu bedela cabitaankaad adduunku ugu jecesha marka ugu horaysanayuu ka bilaabo mataqaanaa bayloodkii qoortuu ka siibay isgaarsiintii oo dhan uu inka xiray aw diyaaraddii mahay ku socota dhan uu ka leexshay asoo ugu daqaldan addii ka war diyaaraddana awtobaaledka uu u fura ka warne shaqaalihii diyaaradda saarnaydhan waa qaarijiyey sa ay adiga garabka u siina ka war soo aruursha ka war asoo adiga kaliga maha kaaga soo tegay diyaaraddaada inay afduuban tahay maaho waa dhume adiga ma ingiriisaad noo maraysa onu kale waay adiga xogoo weyn fikir wax magag badan fikir waxaan rabay diyaaradda adoogaa inaan ku saaro 30 kun oo fiid mayl u jirta dhulka inaan korkeeda kugu duba ka war madaka maamahan waxaan baa soo caamaxda diyaaradaha inay iska lumaan ka war awalba kursiga aniga lagu talagala aniga u ahaa anaana ku fadhiisanaya hadda ka war hal lugu waxaan saaraa qabriga adoogahan saara hal lugna waxaan saaraa akhbaartaada oo lama helaan aan ka dhiga ka war soo jaqwuma hanuunad mahadsantahay mahadsanid aranviro xajadan kale waa dhacdaa lagu qaad wasla annakii
Just that. lixda ay soo dhacday markuu Bombay ka baxayay sidoo kale mudane wax walba normal ay ahaayeen dadka diyaaradda raacay anaga waan baarnay ilaa haddana baaritaan ayaan ku haynaa tan kale mudane ilaa hadda fariin emergency ah nooma imaanin anagan ilaa hadda cadeena raadinoona iyo baaritaan badan oo ku haynaa diyaaradana ma ku muuqataa adiga ma ku muuqataa may mudane way heshiikooyinka raqiista orod ula tag dadka ka sareeyo mudane anaga baaritaanka hadda aawadno tiimka ugu khatarsanayaan u darnay war heeda diyaaradda ugu muhiimsan ee dunida ayaa hawadiina lagu waayay shaqaalahagana sidaan iska fiirin marka sarada shaqaalaha ku kalsoonay waxaba ku cumad dadkan adiga rajadina kala daawuli gabaray maxaa kuu muuqdo ood aragtay ilaa hadda salaamu calaykum mudane diyaaraddaadii oo Bombay ka timid fariimihii kuu reebta ugu dambaysay mudan waa tan adoo raali dhageyso diyaaradda Phoenix 261 Alpha Control kan u gudbinayna hawada Hindi waan ka bixirnaa 1200 dhanka waqooyi 600 dhanka bari altitude kan waxa waa 50 feet xawaaraha diyaaraddan waa 500 knoot 3 daqiiqo kadib isgaarsiinteena way go'i doontaa waan maqalnay 40,000 oo feet diyaaraddiina waa inay ku socotaa duway markaad ku dhawaataan 25 dhanka waqooyi 55 degree dhanka bari marka aad maraysaan waa inaad la hadashaan waqtigaad imaan doontaana waa 9 saac bar waa idinla soo xiriiri doonaa intaanu kaliya miya ها مدني جدول كوحو ها ساعات كور إن أخبار كهلنا إلا هذا لك أخبار كميلين والله أنا هاي ما نقال حكود عدد كاس dhegeysta waxaan u baahanahay dadkii diyaaradda shaqaalaha ka ahaa ee dadkii raacay aqoonsiyadooda oo dhan sida ugu dhaqsiyaha badan waa in gacanta lagu soo geliya aniga okay diyaar waay qof walboo diyaaraddaas raacay feerkiisa halay keeno midda kale waxaan rabaa intaan diyaaraddaas ka helayno arrimaheeda bannaanka inuu u baxdan ma doonayo ma fahanteen hala qariyo okay diyaar waay ريدي قدام بيسكواس ماهين ونول هولي قولوا فن عيارة ما حيال عاجز دريمة يا وهي أرنت قرف قادم مغلية حتى مع السميلها محاسمة يا أدري لكن قرشان وكهلابي فيلم كان وحلو حتى مع السميلها فيلم كافو يدري كري بحبض يقول فكري مدي يقول لي كري بمو كاني كري قفض وبم كدل اسكو قرحي موت لكن سينا ما ما يقول سلعنا يا وفهم كرا عدوتني مدى waxa ay tahay meesha ka bilaabanaysa intaba cadowtinimada macnaheedu waa dareemi karaa sida shawle iyo wembley doonayo macna waxyaabaha soo dhan laakiin diyaarad adeerkay weydii qiimaha diyaaradda ay ku fadhisay hadduu yaqaanay haddii kale
khudbada saanayo dheereed waa dheereed maxaa liigu sheegay pilot diyaaradda inuusan saarnayn yaa igu kacinaya diyaaradda waa kaas diyaaraddii aan wada aabihiisa marka ciil yaan la hadlaa diyaaraddeena waxay ka soo kacday Bombay waxayna u dhaqaaqday dhinaca Dubai halkan markay marayso waa markii ugu dambeysay ee Felixka ay soo dirto meeshana waa meesha raadaarka ay kaga baxday oo akhbaarteeda dhan ugu waayay hadday wax walba saxnaa lahaayeen diyaaraddeena sidaan ay u soco lahayd Dubai ayayna tegi lahayd balse qalad weyn ayaa jiro Bombay iyo Dubai waxa u dhexeeya kumanaan taawar hadday baasha meesha mari lahayd waxaad ogaatiin taawaradaas mid ka mid ah ayaa wax ka duubi lahaa balse dhinacaas maba aysa aadin taas macnaheedu waxaa weeye diyaaraddeena badda ayay aaday halkaas ayay u dhaqaajisay waddada ayay ka baxday dhinaca badda ayayna aaday wax walba Felixka ku soo dhacayna dhinacan iyo dhinacan halka u dhaxays ay ku soo dhacayeen mudane suda horta diyaaradda unaka markay baartaan ku sameynay wax walba oo dhammaystirnaayeen diyaaraddaas wax ka haleysnaa male meesha korontada waxa dhan ku dhahay waa cusbaayeen okay ahaayeen xitaa mudane qaybta emergency ee diyaaradda way fiicneed ninka diyaaradda ilaalinaya wuxuu noo sheegay markii diyaaradda duulaysay inay aad u fiicneed balse 15 daqiiqo kadib ee isbedeshay kontaroolkana anaga marka hore ma noo shaqaynaynin mideeda kale wax laga yaabaa raadeerka hawada dhexdeeda markay maraysay inuu ka lumay sababtoo isbedelka wuxuu dhacaa 5 ilaa 10 sekin baylotkana kabtan Sanjay Saniya BK Sharma la socda waxa walbana video camera ka fiirina waa kana aku daro Joji kabtan Saniya qoyskiisa ayuu Phoenix kula soo dalxiisaya asaga sawirkaana waxaa la soo dhigay 4 saac ka hor weliba waqtigii Felix hawada ay gelaysay marka akhyaari waxaad ii sheegaa diyaaraddan ayada lama weyn ee waa la qariyey
ducada bamka lama la aqbalaa waa yaabana tan maxaa ugu ducaystay bambadii ugu wareejiya haddaan ku ducaysana waa ilaamiya ducooyin kaloo fara badanaa jira yaa qeybali rumay lahaa ha ayar isdeji toos u fiili bamka toos fiilada raac weliba midda gariijaha mase cagaarta may gariijaha waay may cagaarta sugteen raaca marka ma kala aqaan waxaan waa ku wareeray laga yaabay fiilooyinkii inay islahaadaan laakiin gasaca sababta gudud looga soo dhiga maxay tahay dhib badan asagoo isku dayaa may muu dhowaanaya jay fayrus saacan hadday joogi lahaayeen shilnay tuuran lahayen oo ku kala bixi lahaayeenno filimaanta jaceylka maxaan ka doonay agshinka haddaan fiirsalaa saacan bubkaan xalaa uu keeni lahaa laakiin anaa isku ciyaarano waxaan sameeya sug waa isku daya intee ka bilaabaa suga lisdejina laakiin familkaygan hoosta ka geli doonaa umalaynaa चुप हो जा चुप raadad finiska markii la waaye kadib 25 daqiiqo military Soomaaliya raadalkood waxa soo qabtay diyaarad la aqoonsan karin waxa isku dayay imtixaan diyaarad hawo ku jirto in la soo halin laakiin diyaarad hawada ka baxday Soomaaliya macnaha aniga qiyaastii runtii waxay ahayd mid mudana laba xaqiijin diyaaradda inuu yahay in kale aad baan ugu xumahay waayay waxay dhama samayseen haa mudane kabtan Saniel ayaan la hadalnay isagana shaqada uu ku soo laabtay hadda wax walba sida la rabay ayaa loo xalinayaa mudane reportkiisu waa kana uu soo gudbiyay waxa uu fiiray diyaaradda Phoenix pilotka joogtaa waa kana pilot kalena waa cancelne emailkan xafiiskana ka imaanay waxa walba information message ka helnay isla saaka dacwada ayuu soo gudbay waliba xafiiska ayuu soo gudbay wuxuuna sheegay aabis of pilot in la laayahay kadibna ID card fars ayaa loo sameeyay ayadoo la xaqiijinaa in amarkeeda mudan waxa waay aan qiyaas bal hal mar aniga amarka xafiiskeena ayuu ka yimsan u maleynaa Soomaan mudane laakiin mudan hamida jiro ay maxay tahay mid kale sheeg bal mudan mid kale jid maxay tamtaqana security airport inta la sameeyay lawna ka maqnaa wili maanta la baaray way bal horta hal mid sheeg beeloodka magaciisa maxuu ahaa horta asaga PK Sharma oo asaga ma oga miya beeloodka la socday kabtan saana inuusan ahayn duulimaadkiisa ugu horeeyay waay mudane arintan madaxa sare waxa walban waa u sheeganaa ee ka xalin karaan ku xamalin maya diyaaradan waa la afduubtay balse qofkii afduubtay amaba dadkii afduubtay waxay sugayaan natiijo anaga ma doonino in ay wax ogaadaan ayaga ilaa anaga wax ka ogaanayno cidna iyo waxbaan loo sheegin hadalkayga ma fahanteen wax walba hala qariyo maamulka ma imaaday mudane 20 daqiiqo kadib way imaana maangidaas way hadda baxa balse hal mid sameeya inta aniga aan ka imaanayo shirkiyaan la bilaabin tawakkal way
نص يا غدا نص. نص بوبسي يا بوبسي. maanta yaa khaynin awal in laga dhigaa la rabo soma
girta mede 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 halo 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 مالي مقلا قف عدك مقلا يا مجرى الى الهضله يسجوا warbixino ku saabsan diyaarad duulaysa ayaa baraha internetka oo dhan qabsaday taasoo weliba olol badan uu ka baxayay waxaa la helay fiidiyoyaal diyaaraddaasi ay kasoo dhex muuqanayso waxaana duubay inuu reer Dubai ah diyaaraddii markaanu eegnay kadib waxaanu ogaanay inaysan ahayn diyaaraddan midda rakaabka qaada ay tahay mid qaas loo leeyahay fiidiyogana hadda arkaysaan waxaa muujinaya dadkii diyaaradda saarnaa fursado yar inay ku badbaadiyeen dadka la shaqaynaya diyaaraddaasi ee Abu Dhabi joogana ilaa iyo hadda waxa warbixina ay ka heleen haba yaraatee ma jirto waxa inay isku dayaan waqtigan inay la xiriiraan dadka saaran diyaaraddaas laakiin meel diyaaraddaasi ay ku qaraxday iyo meel ay ku dambaysay ilaa hadda lama helin أنت سيدة أبو دبي هذا اللحظة ما عاد سجسة مدن إلى هذا دقيقة مقولتها مدن رفيق هذا ربطو أنا داركت قافك ودولا يا سجا أرد أو عرك كويلي سيد ودولا أنا الصغار كذيك كيكي سفعنا كم غلا حفلة يقولوا بالكيكي بباشالو سا وركيسي بنت حكومة حفلة بيل وقيس أنا حرير وقال مرويح اللي باحت هذاك خرشوا هناك سنة وطقي لكن دعاء مركان كل ما أسق حتى ولا قدره إيوالي تأسيس أنا دقايا قراسنا دعاءنا ولا قب قلنا ونصيب انت ماشي أنا تصدح ميدا صار هضادي مالي هاد أفراد كنا غوري هيت وركب بدني قد أفكوده قوفي عاوي أكتاد مجوغا إلا هذا غير وقتك ما حد يقول له من إنسان ما يجي وقتي
waxaad la fadhiisaa waa ku baryaa caawi oo badbaadi wiilka asalaamu calaykum maxaan kuu sameeyaa marwo ducayisana halkan uma taagnin ee nafteeda isku day inay badbaadiso xalaad keento please mudane midaan ku weydiina adiga shuud ma kuu muuqdaa haa shuudaan ku dhahay runay ka tahay haaruna iga tahay ma kuu muuqdaa maya ani waxyaabaan hadda kama hadli kara hal xaasan leeya gabadhe hay qasbin ee xaals maxaa sameeyaa wiilkayga baarashuuday ka wada xaa ku hel adiga baarashuuda danaysa marrayso ma boodeen adinka ma hadal idinka sugidaa iyo jawaabo wiilkaygii out eject taaba balorta see u hadlaysaa awowe magaalaan kor duulayaa hal qof sida loo badbaadiyey ma kumanaan qofaa loo dili karaa aniga iga farqiga noo dhexeey muxuu yahay awowe almafiir muhiim ayaad noo tahay wiilkaygii warkaas ka bax kowdhe diyaaradda in la dejiya ayaan doonayaa waa inaad qorshe keentaa sidaan u dejiyaa kadib gabadha shukaasa haddii aad doonayso caawi oo ku baryaa wax la sameeyaqso baabsi gabadha hadalkeeda iska daa mudane i dhegaysa marka hore waa inaad daarataa tarasar foofarka si aan anaka kuu dejino taas muhiim waa yaaqi mudana daaro kalimaa way tusi bliis yaaqi caawi waa ware wiilkan dhib badan ayaa qadeer aniga diyaaradda ma duuliyo waan sameeyaa oo keliya si tartiiba igu sharax boorka hortaada ka muuqdo dhinaca midig batoon ku yaal waa ku qasbantahay inaad taabato taaba yaaqi beela waaye hadda diyaaradda online waaye mudana beelaad tahay waxaa noolaga baahan yahay diyaaradda leebarkeeda inaan saxno hadda baalka midig waa inaad 15 digri geysaa waxaa lagaa rabaa SB-gana 110 waa inaad geysaa batoonkana gedi kadibna marshada tartiib hore u wadiyaa ilaa hadda kuma fahmaayo istaaji deganaan yaqafaankaaga ma aqaan diyaaradda kor xawaareedu u socdaa waana qarxi doontaa kafta kuma jirnaa kudha maxaa kaa qaldan adiga dabcan xili la kaftama ma joogno kowdhe si tartiibe waxay igu fahansiisiya diyaaradda u dejiyo ujeedaa marshada weyn oo dhexda ku taala adiga ha midda weyn soma oo madow u dhalaalaysa ha marshada weynta waxaan kaa rabaa tartiib gadaal inaa u soo celisid hadda waxaa lagaa rabaa 120 nood inaad geysid hadalkayga ma fahantay dhaqso shaashada geey afar shaashad ayaa meeshan iga muuqato waa midee maxaa ku sameeyaa yaa qibidda wareegga badan leh ma midda maabkii matoorada kuu muujinaysa mase waa mid kale buugga ha ka raadin kuma qornay muhiimadda waa inaad cabirtaa muhiimadda kaadan hadda dhaqso yaa qistaji hadda qaybta dhexe waxaa lagaa rabaa tartiib inaa u wado riixaya waan wadaa soo maaragtid waan wadaa weli waan riixaya hadda waxaan kaa rabaa inaad ka raadiso qaybta dhexe kalar buluug iyo kalar kafee ka raadi buluug ima muuqdo kafayna sidoo kale ma arko maxaa sameeya oo kale ii sheeg in la helo waa muhiim kafeega haaf ee ama buluug oo haafa tartiib u kaxeeyaa ku dhahay waan ku garto waan riixaya waan wadaa haye okay weli wuu noqday beela waa haddaa hesh hadda waxaan kaa rabaa marshada tartiib inaa uga foqdo midda kaleeta lambaraa kuu soo yeerinayaa lambarkaas waxaa rabaa inaad geliso micnahaygu way qarxaysaa ayaan ku dhahay kale adigu wax ma ii sharaxaysaa mase waa cabsi gelinaysaa waa kuu sheegayaa leh diyaaradda tiyada ma ogi laakiin tanaaba idiraysaba ka hor sidee kaa noqotayna horumarisaan ku siinaa maaho kadibna anaa alaabta dhaqdhaqaay taas macquul maaha kanaa hadduu ogaada waxaad ogaataa aniga in aan baxar galaay kanaana nin waxyaaba qaar yeelaay maba maya xooga kamagaad ka hadlaysiyaa waa beeloodka waa lacagas iga dalbahooya yaa kontoraadan ku siisaa hal qof u disho ma dadka saanad u dishaa wax dilan ku dhaasa iyaarkan dil ku dhaaba warkiisa dadka dhex wareegoya sadarta muga وابن لولي ابن كمان دمان وقصد بتاع العجلة نقصي العجوة هنكون دي بس إلا أدل وقص بين لا نعلى كويالي مقدم باي صوّن
kana ana horaan kuugu sheegay arrintan waa arrin aad iyo aad u yar dhibaatadaas sidaan u weyn adiga inaa abuurtid maba ahaanbo hal sanduuq madoobaad xallin weysa arrintiisa sadarta aniga shaqaynaad igala hadasha ma biga la hadli karta balaayo afkor u badane hawlwelin adiga ilaa hadda rajaa jirtay akhi saas darteeda oo asiga wuxuu u dalbanayay gurmad teeda kale qaraxaas qof kama badbaadi karo aryaa waqtiga fiiri dabaayahu qaraxa 20 daqiiqo ka hore u dhacay iyaarkaan ma sahlan dilkiisa inuu dhintaan rabaa warkiisa mugdan baynu soo gaara maran kawiya ninka mudane maalgeliyaashu way imaadeen diyaarta waa aragnaa waa ujeedii mahayno beelo meesheeda ku socotaa beelo hay maxaa sugaysay sida uu dhaqsiyaha badan gurmadka qaybta saddexaad ha la geeyo socda adeerka adigoo ku walwala ha walwalo waaba loo baahan yahay aan soo gaaro waa ku baryaa isku day diyaaradda inaad soo dejisa adiga isku daygaas wuu imaanaya master ranfir diyaaradda ranwayga ayay ku socotaa markaa isku dayayaa si kaleeta inaad u isticmaashid waa ku baryaa tartiib u soo deji diyaaradda sanada ilaadas jeceylaanba kuu qaadaa iska dhagatir xawaaraha 8 nootis geeyaa ku dhahay qaybta dhex waxaa ku taalla marshe madow ah waxaa geysaa 25 digriis hadda leebalka isticmaal si diyaaradda iskugu diyaarisa inay degato wax yar kadibna diyaaradda degasho ayay isku diyaarinaysaa dhaqso ma ku soo celi kartaa ma dhici karto diyaaraddan qalabka lagu soo degi lahaa hadda ma lahan waa raalli ahaanaysaa maxaa dhahday ya abo mudane i dhegayso adiga hadda hanweyga ma ku soo degan kartidaan ku dhaa waxaa samaynaysaa biyaha inaad ku degataa mii maqlaysaa bes markaan waad ka badbadinaysaa meeqa waxaa ii diraysaa adiga yaaqi warkayga maqla haddaad samay weyso waa dhimanaysaa ku dha hadalkayga maqlaya bes relax isdeji degnaan meeqay ku siisaa shidaalka xataa diyaaraddoo ka dhammaaday maxay dhahday saan kuu sheegay ninkan hadalkiisa ma fahmi kariyaan ku dha wax walba isku dhammaadeen saan macquul maahan هو العظيم عبيد الطائرة بأقل من 100 ميل من هنا إذا ما ينجح ناس كثير بيموت ولكن ما عنده إلا وقود ليوصل هناك mudane ma soo degi karaan meel loo jirta 100 nautical mile inuu ku soo dego waayo haddii kale dad badan ayaa ku dhaawacmayaan ama ku dhimanayaan intaas waxaa sii dheer diyaaradda shidaal ma haysato waan ogahay dhibaato inay jirto awowe wiilkaygii oo ku baryaa hadalkayga dhegayso axsaankaas la ii samey maanta isdeji adeer maanta dhimashayga ma hayso ee wakhtiga imisaa iga harsan ii sheeg adeer yaad meeqa u harta bal sheeg bal 5 daqiiqa u hartay 5 daqiiqa haysataa beelo wakhti aad u badan
ayaan haystaa mawduucaan bedelaynaa see tahay gabadhaada ayaa jecle maxaa dareemaysaa hadda kambanigeena caymis ma leeyahay adeer ii sheeg yaa noo qaabilsan ma laha maya caymis kambanigeenna oo waa iska dhisnayn macnaha maya waa ku baryaa sabab dhegaysta wiilkayga waa ku baryaa waa ku qaanaa waali ay rabtaa inaad samayso marka waa ku baryaa waxbaanaan samayn hadalkayga oo kala yeer markaan waa ku baryaa wow waa soo laabatay jaantii waa arrin fiican wiilkaygii dhegayso annaga waddo kale ayaan raadinaynaa marka waa ku baryaa adiga isku day inay fahantid xal lama weynaayo anaa ku dhahayo wax walba wala xal 5 daqiiqadii qabata adeer 4 daqiiqa ay harsan aqashay walwalka iska dhaaf ficilan samaynaynaa 1 daqiiqa waa baxday action أصحاب عليها سببتو أكرمت هذا ماشي حالات هذه وحنت نقول مجوك أنا صباح شمالي صعد أوكي نبضة إصلاحات دوا بحين أنا سعودية ولا هذيك الملكية هوسكري غاجية كرت ماشي وحنت هاي صعد مضر نبض وعن حتى إن عن ما هي يا أخي ساسمي هاي نبض أرجع هليكوبتر تمرك ما هليكوبتر طالع بلا زاد دقيقة ما يسسك مرحبا عندك دتك أمني جود هالسوقانة بح هاي ماشي ندبي وحلا الشيء جوا هليكوبتر تعبنا هلو mudane kana qof ayaa raba adiga inuu kula hadlo soodaa waa ku salaamay adeerkana hay lama filanay kugu noqotay maxaa kugu dhacay laakiin qorshahaada qorshe wanaagsan ayuu ahaa in la qaatana waa lagu qasbaya qof qiimihiisa in ka badan haddii aad siiso aabbaha inuu yahay ayuu u malaynayaa ma garatay kana qorshahaada horta si markii loo fiiriyo wuu wanaagsanaa si fiicanaad u soo abaabushay laakiin aniga marnaba imuusan qancin horta kalsoonidaada in la qaato waa muhiim sababtoo ah dhimashadoo qarka u saaran haddana sii kibri ka war muga koowaad mahadsanid oo inay dhahdaa shirkadaad adiga qoysan rabtaan badbaadadeeda ku jira shirkadaadaan badbaadinayaa ka waran bog ii mahad celi shirkaddeeda kana markaad badbaadinaysa ma naag baa boor yar ayaa dusha ka gaara waana ka jajafayaa mar haddii aad rabta cirka inaad dab ka shido waa inaad leedahay awood iyo karti aad cirka ku fiirin karta kana haddaad diiddana waa ku baashaalinaa adoo ogeyn weliba
taga dhaqsada dhaqsada mararka qaar way dhacdaa adeerkanna way dhacdaa ha walwelin tanna hadan kugu talagala leyli काम हो गया. It's time to come back.